dowladda hoose ee degmada Berbera ayaa saaka bilowday olole lagu banaynayo laguna burburinayo qaybo kamid ah guryaha xaafadda Burca Sheekh kuwaas oo ku yaala bartamaha xaafadaasi ee magaalada Berbera. dadweynaha saaka laga burburiyay guryahani oo gaadhay ilaa 12 guri ayaa cabasho xoogan ka muujiyay ogeysiin la'aan aan la ogeysiin waqtiga ololahani lagu burburinayo guryahooda la bilaabi doono. dadkaasi oo aanu saaka ku booqanay xaafadda Burca Sheekh ayaa waxay noo sheegeen inaanay maamulka dowladda hoose ee degmada Berbera wax qorshe ka soo saarin ama aanay xil iska saarin halka ay dadweynahani degi doonaan burburka guryahooda kadib. waa sidii hadalka u dhigeen shacabkan oo luuqad adag ku sheegay cabashadooda ayaa waxaa hadaladoodii kamid ahaa cabdishakuur maxamed madaxnimadiisa noqotay sida dadka loo baabiinayo dadka masaakiinta sida loo baabiinayo in madaxnimadiisa noqotay dowladda waxaan ka codsanaa dadka in hoos looga maantada shirxsan iyo dowladda sare dowladda hoosaba umadkiisa un bulle sugi doonaan dowladda waxaan u sheegaynaa dhulkii dhanaga dhul lama siin lacagna lama siin saaka 6 subaxnimo la galay anagu quraacid weyn oo caruurteeda waxaan ku noo quraacanayso ayaa la nagu bilay waxba la nooma sheegin meel baa la digeen lama oran waxay waxba la idin helana ma oran waxa ku 6 ba caruurta noo quraacsan ugu baata sida la noo galay sida la noo dhigay dowladda sare u sheegaynaa dhulkii dadka la siin lahaa dowladda guriga ku jira madaxda gobolka ayaa waageeratay nin walba 80 balood buu 4 koona ku yeeshay kowdee magaalada dhulkii dadka la siin lahaa dowladda hoose waageeratay madaxda gobolka waageeratay nin walba 80 balood buu waageertay dhulma roomaha iyo inta dabadda la qubo sida xashiishka ayay maxay tooj badan noqotay biyaha inta waa ka bacad kana dhigay maanta dhul lama siin waxba nama siinin meel lama dajinin waxa ku bacdiyalka naga dhigay burburiye galan laga shiday subax saaka naga qurac salaad nagu soo kala heed maayirka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Ciidin oo dadweynahaasi cabanaya kadib aanu waraysi la xidhiidha cabashadaasi la yeelanay ayaa waxa uu maayirku noo sheegay in dowladda hoose ee degmada Berbera ay mar walba u heelan tahay ka shaqaynta bilicda iyo horumarka degmada Berbera. waxaanu maayirku sheegay in dadkaasi laga burburiyay guryahaasi ay dowladda hoose ee degmada Berbera dadkaasi ay magdhow u siisay dhul baaxadiisu ka badan yahay kan laga burburiyay. waxaana maayirku arrimahaasi ka hadlaya hadaladiisii kamid ahaa wax kamida adeegyada bulshada ay u hayso dowladda hoose degmada Berbera santarka Burca Sheekh waa wax muddo wada leedahay wax gaar iska leedahay maaha waxay ku jireen dadkan muddo 25 sanadood 12 qof bay haayeen tirada ama ha ku jiro qol ama ha ku jiro laba qole 12 qof wax ka siman marsiina dhul ka siman iyo lacag ka siman lacag ma laga qaaday way qaateen lacagti wixii aan qaadan mid kasta qasad oo taala Khalid Xasan Kharash wararka telefishinka bulsho magaalada Berbera.